magacaygu waa Sunti Maxamed Cabdiraxmaan waxaan ku suganahay xarunta dhaqanka iyo akhriska ee Jaamac Umar Ciise magaalada Gaalkacyo. xarunta dhaqanka ee Jaamac Umar Ciise waxa ay u diyaar garoobaysaa maalinta la joojin doono bacaha maalintaas oo ay saacisay dawladda federaalka Soomaaliya in ay gabi ahaanba bacaha soo gala Soomaaliya hawada ka bixi doonaan. soo dhawaada xarunta dhaqanka ee Jaamac Umar Ciise waxaan magaalooyinka aan ku leenahay Soomaaliya ee ugu horeeyaan Gaalkacyo, Muqdisho iyo sidoo kale Boosaaso iyo sidoo kale wadanka Kenya ee magaalada Nairobi aan ka diyaarinaynaa maalintaas u diyaar garowgeeda. waxaan sameynay in ka badan kumanaan dambiilood ama saladood oo aan ugu talagalay in maalintaas looga baaqsado waayitaanka bacda. saad ogtihiin ba insha Allah bisha June oo sanadkan 2024 waxa loo madlan yahay in laga joojiyo bacaha gabi ahaanba Soomaaliya isticmaalka bacda markii loo ogaaday dhibaatada iyo waxyeelada ay ku leedahay deegaanka ama dhibaatada ay u geysato bulshada. sidaas darteed waxa xarunta dhaqanka ee Jaamac ay promote gareynaysaa in la hirgeliyo ama hirgelisay oo galabta halkan ku daahfurayna barnaamijka hidaha iyo dhaqanka kaasoo ah in meeshii bacda la isticmaali jiray lagu bedesho salad, meeshii caanaha lagu shuman jiray bac lagu bedesho dhiil, meeshii maxaan ku dhahaa lagu isticmaali jiray wax kasta oo bac ka samaysan oo deegaankeena iyo maaragtay environmentgeena aad u waxyeeleynaysa inaan ku bedelano agabkeennii hore ee dhaqanka Soomaaliya. waxa kamid ah in la joojiyo isticmaalka ool bacahoo dhan, in la isticmaalo qabadii maxaan ku dhahaa cawdii oo laga sameeyo dermo, dambiilaha oo ayaguna ka samaysan qaar oo ka samaysan yihiin qabo qaarna ka samaysan yihiin caw. sidaas waxaanu cod dheer ku leenahay bulshadeena waxaan ugu baaqaynaa in iska joojiyaan isticmaalka bacaha. waxaan isticmaali doonaa saladahan oo ka samaysan quality fiican bacdi deegaankaagana aan waxyeeleyn kana qurux badan. marka waxaa la rabaa inaan u soo noqono caafimaadkeena oo deegaankeena iyo nafteenaba ay faa'iido ugu jirto isticmaalka agabkeena dhaqanka Soomaaliga. kaasaanu insha Allah rabnaa in bulshadeenu ay fahanto. halkana waa xarunta dhaqanka Jaamac. waxaan rabnaa inaad ka soo doonataan saladihii, dambiilihii, dhiilihii, wax allaale wixii aad uga maarmi lahaydeen bac iyo wax environmentiga iyo deegaanka waxyeeleynaya.